بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan meeshan u taaganahay waxaan nimid meeshii shalay haddaas oo kaleeto lagu dilay haweenaydii gabadhii Renee Good oo hooyo ahayd reer Minneapolis ahayd u doodaysay u socotay inay taageerto dadka xaqdarrada lagu caydsanayo dadka xaqdarrada lagu caydsanayo muwaadiniinta Mareykanka la caydsanayo cadaalad u raadinaysa ayaa lagu dilay halkan gaar ahaan dadka luqadeenan ku hadlaya af Soomaaliga ee Soomaalida targetku wuxuu saaran yahay dadka Soomaalida iyaga la raadinaya iyaga la daba socda iyaga la dhibaya from tip to bottom marka dadka sidan oo kale inoogu naxaayay ee la leynayo waana dhibaysaa waxaan aad iyo aad uga naxayaa waliba arrin la iska sii ogaabay ahayd mayorka magaalada governorka magaalada police chiefka magaalada waxay sii sheegayeen ilahayn arrintani waxay keeni doontaa inuu dhimasho ay dhacdo wayna dhimashadiina waa dhacday waa arrintii laga naxayay taasay ahayd waa wax la sii garanayay carruurta yaryar baa fahmaysa marka waxa weeye waa ka xunnahay qoyskana waa u tacsiyeynaynaa maxaan ku idhaahdaa waa ka xunnahayna geerida gaadhay iyo dhibaatada ku dhacday marka waa inaan isgarab taagno dadka innaga markeenni waa ina garab taagnaayeen sidaa laajligeed xanuunka waa in lala qaybsado xaafadduna waaba xaafadeenniiba 3 bilood miyay jirta aniga marka waxaan uga soo qayb galnay inaan tusino intiina sharciyada leh u soo baxa u imaada kala qayb gala muujiyeedii kuna dareenkiina idinkoo wax dhibaataana geysanaynin asaate waa first amendment qofku inuu dareenkiisa muujiyo jeclaan lahaa inaan ku taageero codkayga dadka Soomaaliyeed ee Minnesota degan inay ka soo qayb galaan oo aynu taageerada u muujino waayo hawshani waa hawl gidigeen oo dhan igu socotay marka waxaan leenahay hal laga soo baxo hal la taageero hal laga qayb qaato mudaharaadka